kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka idaacadda kulan ee magaalada Beledweyne. laamaha amniga ee dalka Myanmar ayaa rasaas nool ku furay dad dibadbaxyo ka dhigayay dalkaasi xilli hogaamiyayaasha militariga ay ku dabaaldegeen xuska maalinta aasaaska militariga waddanka Myanmar. Banaanbaxyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Yangon iyo magaalooyin kale. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in 50 qof la toogtay. Taliyayaasha militariga waxa ay ka qaybsameen in ay dibadbaxyada la mamnuucay xuska maalinta aasaaska militariga Myanmar. Hogaamiyaha militariga waxa uu ballan qaaday in la qaban doono doorasho balse ma uusan sheegin waqtiga ay dhacayso. Waxa uu sheegay in militariga ay dooranayaan in ay ilaaliyaan dimuqraadiyadda waddankaasi Myanmar. Dadka u doodo xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 320 qof la dilay tan iyo markii dibadbaxyada looga soo horjeedo militariga ay ka bilowdeen waddanka Myanmar 1 bishii Febraayo. Kulankii maanta baarlamaanka Soomaaliya oo ku soo dhamaaday guuldarro. Waxa guuldarro ku dhamaaday kulan ay maanta qabanqaabiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha ay ku eedeeyeen guddoonka in uu qarinayo ajanda aan ahayn kan la iclaamiyay ee ahaa in lagaga hadlo cudurka COVID-19. Xildhibaanadaas ayaa sheegay in golaha dibadiisa la keenay ciidamo dhar cad oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, balse xildhibaano kale ayaa rumaysan in kulanku uu ahaa mid caadi ah oo la mid ah kulamadii hore ee lagaga doodi lahaa ajandaha qoran ee COVID-19. Gudoomiyaha ayaa markii dambe golaha isaga tagay, sidaas ayuuna ku baaqday kulankii loo ballansanaa. Shir u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho ka furmay. Shir u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana shirka looga hadlayaa khilaafka hareeyay hanaanka doorashada ee Soomaaliya. Waxaa shirka ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle. Shirka ayaa ku soo aadaya xilli ay dhawaan Muqdisho uu ka dhacay kulan u dhaxeeyay madaxda dowladda, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana kulankaasi ka maqnaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo horaantii hore walaac ka muujiyay inay ka qayb galaan shir ay cilaamisay dowladda waqtigeedu dhamaaday. Waxaa ka jira baarlamaanka Soomaaliya in ay maanta muddo kordhin sameynayaan isla markaana ay doonayaan in xukuumadda haatan jirta ay muddo kordhin u sameeyaan. Waxaa lagu soo waramayaa in buuq iyo khilaaf badan uu ka dhashay isla markaana ajandaha maanta ay shaaciyeen golaha baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka uu maanta shaaciyay in ay ahayd in COVID-19 kulanka looga doodo, balse xildhibaanada qaar ay sheegeen in ay jiraan ciidamo dhar cad oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo banaanka ama afaafka hore ee xarunta baarlamaanka la soo dhoobay. Sidaasna ay sheegeen in uu jiro ajanda kale oo la qarinayo isla markaana guddoonka baarlamaanka uu doonayo in marka kooramka uu bilowdo ama uu buuxsamo kooramka baarlamaanka Soomaaliya uu soo bandhigo. Sidaasna ay u dhacday muddo kordhinta loo sameynayo xukuumadda haatan jirta. Waxaana ay sheegeen in aysan ogoleyn in golaha uu waqtigooda dhamaaday isla markaana xukuumadda waqtigooda dhamaaday. Sidaasna ay ku doonayaan in muddo kordhin aan loo sameyn dalkana uu galo doorasho. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya 10 xildhibaan ayaa is hor istaag ku sameeyay in guddoonka uu furo kulanka.